العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد. caawa habeenimo axad ah isniinna ay soo gelayso oo ku beegan 10 bisha toddobaad sanada 2022 miilaadiyada hijriga 12 bisha 11 sanada 1443 waxaa noo bilaaban doona insha Allahu taala kitaabkan oo loo yaqaano kitaabkii 40 ee Imaam Nawawi rahimahullahu taala oo aan jecelnahay inaan intii aan ka gaarno axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka ku tixan page-kan aan ugu soo gudbino luqadda afka Soomaaliga ah. kitaabkan marka waa kitaab xadiis ah. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الأجهي وهايسي تقريرسا أو أيسي بيانسا أحكام القرآن كريم كهذي إلهي وكشاك سبحانه وتعالى سيقونية أحكام القرآن كإجمال ككوة أيا سي مفصلة أو تفسير إيا بيان أيا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ugu cadeeyay sidaas oo kale waxa jirta ahkaam quraanka dhexdiisa mudlaq ku ahaaday laakiin ahadiith al-muqayyad looga dhigay oo qeyd loogu sameeyay waxa kale jirta ahkaam oo qiyaas ahaan ahkaamta quraanka ahadiith loogu cadeeyay marka ahadiith nabiga sallallahu alayhi wasallam aad ayay muhiim ugu tahay tafsiirka quraanka kariimka dadka akhrista si gooniya fiqhiga iyo wixii ahkaam ahay ayaa nabiga oo u bayaaniyay sallallahu alayhi wasallam hayla ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa quraanka ku sheegay litubayyana lin-naasi ma nuzila ilayhim وأنزلنا إليك ذكرا ساسا إلهي يقول قرآن كيان كوسو دجيني لتبين سيادو عديسو قرآن كيان لو سو دجيي يوحي مركز بيانين مركز حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومصدر كلابات مسادر التشريع كمدا سياس درادات أيان وحان دوراني انتانن فقهيغا آنن قدقلين in dadka loo bayaaniyo ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaana u dooranay kutubtii mukhtasaraadka aheeday ee culamadeenu ay marka ugu horeysa ay noo bilaabi jireen waxaan rajaynaynaa kitaabkan oo Imaam Nawawi oo 40 loo yaqaano ee mubaaraga ah عالم الإسلام ما لبضنا وكمذا لقد دراسيه إن مفتاح أو نون قدر أحاديثه أن شاء الله تعالى إلى أمهات الستة دي إلى هنا مكانيو أن كجاري دونه مركب عن رجالنا إن لقفها إلى صدونه الله أنا مكانيو سن بدأ إلهي هنوجد مايو الله أنا مكانيو مركب كتاب كان هذا عاو ميسك نو صارن وكتابكي 40 كإمام النووي إمام النووي أيا كتاب كان ألفي أو مؤلفات ديس أو كمدي هاي مقعيس وحالة إلى يحيى ابن شرف الدين يحيى ابن شرف الدين أيا ليرا مقعيس لقب كيس وحالة إلى محي الدين دين كمدك النولي waxa loogu laqabiyay muhyidiin waxay tahay leeyri likownihi harrara madhhab ash-shaafi'i madhabki shaafi'i ayuu tafatiray waxa kale leeyra an-nawawi ayaa loo nisbeeyaa
nawo maxaa dhacay liannahu wulida binawa waxaa lagu dhalay qaryo oo qaryooyinka shaam ku yaala ka mida qaryooyinka dimashqa ka mida oo nawo la yidhaah ayaa lagu dhalay markaasaa nawo loo nisbeeyaa wuxuuna ku duugan yahay ayaa la yidhi imaamu nawowi isla qaryadaas oo nawo la yidhaahdo oo dimashaq ayuu ku aasan yahay waxaa la yidhi dhalashadiisu waxay ahaaday bisha muxaram ayay ahaaday la yidhi sanadii 630 ayay ahaaday waxaa kaloo la yidhi waxay ahaaday 631 waa la yidhi aad ayuu xalaal miirad u ahaayaa la yidhi sheekhan oo imaamu nawowi ah yaxya ibnu sharafudiin xalaal miirad badan adduunyada ayuu ka suhdiyey wuxuu isaga sabri jirayaa nolol cariiri ah dadka macmacaanka iyo waxyaabaha macaaniga aad u daneeya ma ahaynaa la yidhi sheekha adduunyo iyo macaanyaasheeda dhan ayuu ka tegey habeen iyo maalintii ukla waaxida ayuu cunayaa la yidhi ceshaha kadib hal cabitaan ayuu cabaayay xilliga saxarka loo yaqaano marka karaamaad badan ayuu lahay waxa ay sheegaan culammada sharxa oo ka taariikheeya imaamu nawowi sabaabadiisa oo gacanta bidixda ah inay u iftiimi jirtay waqtiga oo wax alifaayo marka waxuu iftiinsada uu rabo geeridiisu waxay ku soo aadayaa la yidhi imaamu nawowi bisha rajab sanadii 676 cumrigiisu asigoo uu jiro 46 sano imaamu nawowi asigoo kutubta aad maqasheen oo minhaajka oo fiqhiga ah ou ka mid yahay riyaadu saalixiinka ou ka mid yahay kitaabkan 40 ou ka mid yahay saxiixulmuslimka ou sharxay iyo majmuuca ou qeyb weyn ou sharaxa ku leeyahay sharxulmuhadabka haddana da-diisu waxay ahaaday 36 sano 46 sano ayuu u gaarayaa la yidhi laakiin cumrigiisa ilaahay ha u barakeeyey ilaahay ha u naxariisto annagana allah nagu anfaco kutubadiisa iyo dhammaan kitaabkan hadda aanu ka bilaabayno fanniga axaadiista in sha allahu tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabanaa allahu arraxmaani naxariista allahu arraxiim naxariista sheikhu kitaabkiisa wuxuu ku bilaabayay basmalada iqtidaa'an bilqur'aani alcasiiz asigoo ku dayanaya qur'aanka casiiska oo mathalka aan lahayn iyo camalfalow ku camalfalaya xadiidka kullu amri dii baalin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi araxmaani araxiim fa huwa ajdam marka wuxuu dhahay imaamu nawowi bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabanaa allahu arraxmaani naxariista badan allahu arraxiim naxariista badan alxamdu xamdi lilaah ilaahay ayuu u sugnaaday allahaasoo rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqa hantay mar labaad ilaahay ayuu ku mahadiyey imaamu nawowi waxaa mahad iskale ammaan wanaagsan oo kamaal kulligiis ay u sugnaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala allahaasoo qayuumi samaawaat samooyinka iyo wal aradiina ardooyinka u qumidda badnay allahaasoo qayuumi samaawaat samooyinka iyo wal aradiina ardooyinka u qumidda badnay waxaa mahad iskale allaha rabbulcaalamiina caalamkao dhan ayaa ilaahay uu rabbi u yahay caalamkana waxaa la yidhaha maa siwallaah ilaahay wixii ka soo hara ilaahay ayaa maaligoodi ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa murabbigoodi ah wax allaale wixii makhluuqa allahaasoo qayuumi samaawaat samooyinkay wal aradiina ardooyinka u qumidda badnay sifaadda ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbulcaalamiin ayaa ka mid ah caalamkao dhan inuu rabbi u yahay caalamka dhan ilaahay inuu rabbi u yahay insi iyo jinni malaa'igta daabooyinka iyo dhammaan
qayuumi samaawaat wal aradiina waa allaha maamulkooda toddobada samo iyo toddobada ardo iyo makhluuqa ku jira allaha xifdiya oo maamulkooda u quma wax allaal wixii ku dhex suganna xifdiya allahaasoo mudabbiril khalaa'iqi makhluuqyaalka maamulaya ajmaciina dhammaantood makhluuqoo dhan ilaahay ayaa maamula allahaasoo baacithir rusuli rususha allihii soo diray ahay salawaatuhu ilaahay naxariisyaashiisa iyo wasalaamuhu ilaahay nabadgelyadiisa calayhim rususha dushooda allaha yeele ilaahay waa allaha rususha soo diray koonkan ilaahay bini aadamka markii uu keenay ilaahay waxa uu soo diray rusul oo addoomankiisa diintiisa u gaarsiiya ayaa ilaahay uu soo diray awaamir iyo nawaahi ayaa lala soo diray rususha ilaahayna waa badan yihiin calayhim rususha korkooda allaha yeelo salawaatuhu wa salaamuhu salawaatuhu ilaahay naxariisyaashiis iyo wa salaamuhu ilaahay nabadgelyadiisa calayhim rususha dushooda allaha yeelo ilalmukallafiina mukallafiintina u soo diray rususha ilaahay waxaa loo soo diray oo dacwadooda iyo wixii ilaahay amar iyo nahi ahay oo uu la soo diray ay gaarsiinayaan mukallafiinta mukallafiintu marka waa dadka qaangaariinta ah caaqiliintana ah mukallafiin ayaa la yidhaah waxa loogu magacaabay waa litaxamulihim kulfatan mashaqadii awaamirta iyo nawaahida ayay ayagu xambaarteen oo ay dusha saarteen waa dadka qaangaariinta oo caaqiliinta ah oo insi iyo jinni intaba leh lihidaayatihim liajli hidaayatihim rususha tusintoodii darteed ayuu ilaahay la soo diray oo rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunintooda iyo dalaaladooda oo suluuga iyo waxyaabaha hanuunka dadka ay u baahan yihiin inay gaarsiiyaan iyo waxyaabihii halaagu ugu sugan yahay inay ka dheeraadaan ayay dadka gaarsiinayaan wa bayaani sharaa'ici diini wa liajli bayaani sharaa'ici diini diinka sharaa'icdiisa caddayntoodii darteed ayuu ilaahay la soo diray dalaa-ishaasu alqadciyati goynta loo nisbeeyey wa bayaani sharaa'ici diini wa liajli bayaani sharaa'ici diini diinka sharciyadiisa caddayntooda darteed la soo diray bidalaa'ili daliilyaalo lagu caddeeyo dalaa-ishaasu alqadciyati goynta loo nisbeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rususha la soo diray diinka sharaa'icdiisa inay u caddeeyaan diinka waxaa la yidhaha maa sharacahu allaahu min alaxkaam ilaahay waxyaabihii uu jideeyey oo axkaamta ah ayaa la yidhaah calaa lisaani nebiyihi ilaahay nebigiisa lisaankiisana uu ku soo dejiyey haddana adilo oo ilaahay wuxuu dhahay sheekhu adilo oo qadciyo ah bidalaa'ili alqadciya adilada qadciyada ah qadciyada waxaa la yidhaha maa taqdacu mujaadalatu lkhasmi wa mucaaradatuhu waa daliil qadciya haddii la yidhaha qofka khasmiga ama kuwa kula doodaaya doodooda waxa lagu afjaro iyo mucaaradidooda wawaadixaati lbaraahiini wa biwaadixaati lbaraahiini xujooyinka kuwooda cadcad lagu caddeeyo waadixaatu lbaraahiin waa sifadii oo mawsuufkeeda loo ilaafeeyey wa albaraahiinu alwaadixa xujooyinka cadcad sidaas ayuu ahay waa xujooyin cadcad oo wax ishkaala aysan ku jirin oo rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ambiyada wax allaali wixii ilaahay uu la soo diray waxay u gaarsiiyeen dadkii loogu soo diray si toos ah oo dhammaystiran xujooyin cadcad iyo adilo qadciyo ah ayay ku bayaaniyeen imaamu nawowi markaasu wuxuu dhahay axmaduhu ilaahay ayaan mahadinah u dhahay calaa jamiici nicamihi ilaahay nicmooyinkiisa dhammaantood dushooda ayaan ku mahadina wa asaluhu ilaahay waxaan ka su-aalaa
المزيد الزيادة من فضله إلهي فضله سحقه سوق الزيادة وكرمه ومن كرمه إلهي كرم كي سوق الزيادة وأسأله إلهي وحن كسؤالنا المزيد من فضله وكرمه مركي هور إمام النووي كتاب كيسا وحوكو بالله حمد لدي أو جملة اسمياه وكم هذه مر لبعض هدنا جملة فعلية وكم هذه إمام النووي مركا كتب تيسا مقدمة دواء سؤجهين مركز في رياض الصالحين مركز في كتاب كمنهاج وفقه وسؤجهين افتتاح حديث مركز هو إنه جملة اسمية وكم هذه هدنا جملة فعلية إلهي أيان مهدنا هو ده على جميع نعمه إلهي نعموين كي سدمان توت إلهي سبحانه وتعالى نعموين كادومن كي سوق نعمي ونعموين آدو فربضا وصورتقل أي سنة إن لا تريو قفل بو أدو اسكو لابو نعموين كإلهي كسيه ترى لما قارتد واتي إلهي ودا وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها هديات تري ماكتين إلهي نعموين كيسة مكوبي كرتينه لله مركا نعموينك وحي سوق جيران قيب الدنيا كو تعلق ده يا قيب آخرة كو تعلق ده نعموينك الدنيا ده كو تعلق وحا ugu weynaa layni نعمة الإيمان والإسلام آخرة النعمة لا اسكو siiyo وحا ugu weynaa layni مشاهدة ذات الله تعالى إلهي ذاتdiisa aragtideeda ayaa ugu weyn oo jannada lagu arkaayo marka nicmooyinka ilaahay dhamaantood ilaahay asigaa ku mahadsan marka nicmooyinka marka uu sheegay ayuu wuxuu dhahay wa as'aluhu ilaahay waxaan ka su'aalana al-mazid min fadlihi wa karamihi ilaahay uu iga ziyaadiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ziyaado nicmooyinka inuu ii ziyaadiyo ka dalba hawda imaam Nawawi waana ihsaanka ee fadliga ilaahay iyo karamka ilaahay واشد وحن مرخاتي كعا ألا إله كلين وسنجر إلا الله إله ماهنه الله سؤال واحد كاهي الله سؤال قهار قسبد بدناي الله سؤال كريم صوبناي الله سؤال غفار دم دافد بدناي إمام النووي حودا وحن قرا أن كم مرخاتي كعا وأنه جان سنانا ألا إله إلا الله الله حق لو عابدين وسنجن إلا الله ما هنه الله سؤال واحد كأه في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له ولا نظير ولا مشابهة بينه وبين غيره بوجه من الوجوه الله واحد كأه ذات ديس إيا صفات ديس إيا أفعاشيس أحد كل شرك وبناء سنجرين وحقوق نظيرنا أي سنجرين إلهي سبحانه وتعالى مشابهة إلهي إيه غير كيس كده حيث بوجه من الوجوه يسنجرين الله صيان وحدانية دي صغيرة هو دهي الله سؤال غهار قسبد بلناي قهار والذي لا موجود إلا وهو مغهور تحت قدرته مسخر بقضائه عاجز في قبضته والله وحجر وإلهي aan ahayn ay dhamaan yihiin kuwa la wada qahro oo ilaahay awoodiisa ay ku wada jiraan qalaha ilaahay ayaa dhamaan ku wada fulaya qabdada ilaahay ay ku wada jiraan wax ka baxsan ma jiraan allah su'al kariim ka ahay ilaahay waa allaha kariima waxa laga wadaa waa alladhi idha qadara afa alli ilaahay uu qadaro iska cafiya wa idha wa'ada wafa haduu wax balan qaado oo fiya وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء هدي أو وحسينا يعني إلهي الزيادة وحب هي منتهاها يماشي وكل ماذا أنا رجينين أو ماذا أنا لهين أنت وحب هينه ولا حد لو قياسها ولادتك أنت على السيزي النقصان إيماني سمجرت الله سؤال غفار الدين بدافد بدناي addoomankiisa ilaahay waa uu dembi dhaafaa haddii ay u toobad keenaan waashadda waxaan markhaati kaca alla anna muxameda nabi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisa inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisana uu yahay wa xabiibuhu ilaahay xabiibkiisa uu yahay
wa khaliiluhu ilaahay khaliilkiisa uu yahay wadaygiisa uu yahay waxaan markhaati ka noqonaya haw dhahay imaamu nawowi ana muxamadan cabduh nabiyullaahi muxamed cabduhu inuu yahay addoon ilaahay inuu yahay wa rasuuluhuna uu yahay waxaa la yidhi cabdi iyo rasuul waxaa la soo hormariyey oo imaamu nawowi uu soo hormariya meeshaan cabdigii uu soo hormariyaa lidhi wasfu lcubuudiya ayuu soo hormariyey wa imtithaalan lima fi lxadiidi saxiix xadiidkii saxiixi ahay wixii uu ku sugnaay ayuu ku camal falaa la yidhi imaamu nawowi oo ahay quulu cabdullaahi wa rasuuluh haddana waxaa la yidhi cubuudiyadu liannahaa ashrafu owsaafihi waa nabiga sala allahu calayhi wasalama owsaaftiisa midda ugu sharafta badan maxaa dhacay maqaamaadka sarsare nabigeenna markii uu ilaahay ku tilmaamayey cabdi bis ayaa ilaahay uu ku tilmaamay qur-aanka munasalka ilaahay waxau dhahay fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa waxyiga isra iyo micraaj subxaana aladii asraa bicabdih tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdih marka waa addoonnimadi ilaahay uu talagalay u qalma cabduhu inuu yahay ayaan markhaati ka ahay u dhahay wa rasuulu ilahi rasuulkiisana uu yahay oo nabiyullahi moxamed rasuul ilaahayna waa yahay wa xabiibuhu ilaahay xabiibkiisi uu yahay wa khaliiluhu ilaahay khaliilkiisi uu yahay waa xabiibki ilaahay aladii axabahu allahu tacaala wa jacalahu khaliila ilaahay waa rasuulkii ou jeclay xabiibki ilaahay khaliilki ilaahay afdal almakhluuqiina cabdigaasu muxamedkaasoo afdal almakhluuqiina makhluuqyaalka nabigu uu fadliga badnay ahay makhluuq oo dhan ahlu sama iyo ahlul ardo nabiyullaahi muxamed ayaa ugu fadli badan ugu derajo sarree ugu sharaf badan fi dunyaa waalaakhira waxaa ku xiga afarta rususha ululcasmiga la yidhaah inta ka dhiman waxaa ku xigay dhahaan culammadu nabiyullaahi ibraahim waxaa ku xiga nabiyullaahi muusa waxaa ku xiga nabiyullaahi ciisa waxaa ku xiga nabiyullaahi nuux rususha intooda kale ayaa dhanka fadiilada ku xiga nabiyaasha oo rususha aan haynaa kusii xiga ayaguna sidaasay usii kala fadli badan yihiin oo malaku jibriila kusii xigaay mika-iil iyo israafiil iyo casraa-iil ilaahaya xaqiiqada og laakiin sidaas ayay ku sharxaan culammada sharxa axaadiista qeybo ka mid a cabdigaasoo almukarama la karaameeyey ama muxamedkaasoo almukrama oo la karaameeyey ama almukarama bilqur'aani qur'aan lagu karaameeyey qur-aanka lagu karaameeyey qur-aankaasoo alcasiizi mahalka la-ay oo wax la mahala aysan jirin almucjizati bilmucjizati mucjizadii lagu karaameeyey nabiyullaahi muxamed oo cabduhu ah rasuul ilaahay ah xabiib ilaahay ah khaliil ilaahay ah afdal almakhluuqiin ah haddana almukarama bilqur'aan waxaa lagu karaameeyey qur-aanka casiiska ah ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi muxamed ayuu ku karaameeyey oo uu ku soo dejiyey qur-aankayna nabi kale oo lagu soo dejiyey ma jiro nabi walba waa lahay kitaab waa lahay loo soo dejiyey laakiin kitaabkayna furqaanka loo yaqaano nabigeenna ku karaamoobay oo lagu karaameeyey almucjiza marka alcasiiz haddii la yidhaah waa aladii laa nadiira lahu waa kitaabkeena qur-aanka wax la nadiira fasaaxada iyo balaaqada uu ku socoyo ma jiraan waxaa laga mamnuuca taqyiir in wax laga bedelo taxriif ilaah ayaa ka xifdiyey inaa naxnu nazalna alqur'aan inaa naxnu nazalna ilaahay waa ti u dhahay wa inaa lahu laxaafiduun almucjizati bilmucjizati mucjizadii lagu karaameeyey mucjizada waa qur-aanka ayaa ka mid ahay waa mucjizadii fusaxadii carbeed oo dhan qur-aanka inay ku mucaaradeeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ou ka cadsigeliyey inay qur-aanka wax la mahala la yimaadeen markii hore insi iyo jinni ilaahay waxau dhahay calaa an yatuu bimithli hada alqur'aani laa yatuuna bimilih waa ka caziyeen haddana ilaahay waxau dhahay
toban suuradood ayaa laga cajzi geliyey fa'tuu bicashri suwarin mithlih haddana biaksari suuratin wax qur-aanka ka mida oo ay la yimaado karaan waa la waayo mucjizadaas oo almustamirati daa'imaysa calaa tacaaqubi siniina maca tacaaqubi siniina sanooyinka isla cirbintooda micigeeda daa'imaysa mucjizadaas oo almustamirati daa'imaysa calaa tacaqubi siniina maca tacaqubi siniina sanooyinka isla cirbintooda amba kaltamidooda micigooda daa'imaysa oo sanooyinka tixan waa mucjizo daa'imaysa oo mar walba ma jirto xilli la leeyahay qur-aanka kariimka iyo mucjizaadka nabiga sala allahu alayhi wasalama xilli ay ku eg yihiin ma jirto oo qur-aankeena ilaa qiyaami saaca mucjizaadka nabiga ugu weynaaye ilaa qiyaami saaca axad isku dayi kara cajzigiisu waa taagan yahay iyo wixii la midka ah wa bisunani sunnooyinna lagu karaameeyey sunantaasoo almustaniirati ee ifaysa lilmustarshidiina kuwa hanuunka dalbaaya u iftiimaysa waa sunnooyinka nabiga waa axaadiista oo ayaguna qur-aanka sii bayaaniyey mustarshidiinta ee dadka hanuunka raba markaas u ah hanuun ilaahayaa nabigeena ku karaameeyey marka waa waxyiga maxaa yeele sunnada nabiga sala allahu alayhi wasalam axkaamti farad iyo sunna intaba cid ayaa sii caddaynaysa almustaniirana waxaa laga wadaa ee waadixa aheeday qofkiiba hanuun raba iyo istiqaamo wax mugdi iyo madowka gelaya ma jiraan sunantaasoo wa bisunani sunantaasoo almustaniirati ee ifaysay lilmustarshidiina kuwa hanuunka dalbaaya u iftiimaysa almaqsuus waxaad ka nactiyeynaysaa muxamedkaasoo almaqsuusa la khasisay bijawaamici ilkelim kelimooyinka kuwooda jamciya lagu khasisay oo nabigeena sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu ambiyada kale uga khasisay iyo rususha jawaamicu lkelim wax loo yaqaano waa alkelim aljawaamic waxaa loo yaqaanaa iijaazu lafdi maca sacati lmacnaa lafdiga in isagoo u gaaban yahay macno waasaca lagula yimaadaa la yidhaah marka macaani badan ayaa lafdi gaaban lagu jamciyaa taas waa amar amar maxmuud ahoo la mahadiyaa layidhi marka isla kitaabkan ayaan ku arki doonaa axaadiis gaaban erayadooda markii la fiiriyo laakiin macnaha ay xambaarsan yihiin aad ay u macno badan yihiin jawaamiculkelim waan arki doonaa marka jawaamiculkelimyaasha ilaahay uu nabiga ku khasisay laba qaybood ayay ahaayeenaa layidhi laba qaybood ayay ahaayeen mid ka mida waxaa waaye maa huwa fi lqur'aani wax qur-aanka ku jira aayad qur-aan oo qur-aanka ka mida in allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba wayanhaa cani alfaxshaa'i walmunkari walbagi aayaddaas wayle aayaddaas marka wax looga tegay ma jiraan waa lees wada amray wixii leeska reeba nawaahi oo dhanna waa soo gelaysaa qeybta labaad oo jawaamiculkelimkaa maa huwa fii kalaamihi sala allahu calayhi wasalama kalaamka nabiga inuu si toosa ugu dhawaaqo waxaa noo imaan doonta in shaa allahu tacaala min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacniihi iyo wixii la mid a iyo masalada laa taklab uu ku keeni doono marka nabiga waxaa lagu khasisay bijawaamici ilkelim muxamedkaasoo almaqsuusa la khasisay bijawaamici ilkelim kelimooyinka kuwooda jamciya waa min idaafati sifati lilmawsuufa la yidhaah bilkelimi kelimtaasoo aljawaamici wa samaaxati diini wa bisamaaxati diini diinka sahlanaashadiisa lagu khasisay wa samaaxati diini wa bisamaaxati diini diinka sahlanaashadiisa lagu khasisay oo nabigeena sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu ku khasisay diin sahlan ka khaaliya waxyaabo dhibaato ah oo annaga sharcigayna sidii yahuudi oo kale culaasyo badan oo nabigeena sala allahu calayhi wasalam walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina ilaahay waa aqbalay annaga haddii aan xoolaha ka dhiibayna sekada markii loo fiiriyo inta la dhiibayo aaday u yar tahay
haddana annaga dil haddii uu dhaco khadaba ha ahaado diye ayaana la ogolaya amba cabdi ha ahaado oo qatli kaliya kuma qaydin laakiin ayaga yahuudi oo kale waatay ay ahaaday diye oo kale kuma banaanay xataa haddii qatli khada uu dhaco markii waxyaaba hantida ay wax ka dhiibayaan sekada oo kale rubac ay dhiibi jireen 4 meelood hal meel ay dhiibi jireen annaga culaysyo badan ayaa ilaahay diinteena sharcigayna fudayd ilaahay uu ka dhigay salawaatullaahi ilaahay naxariisyaashiis iyo salaamuhu ilaahay nabadgelyadiis calayhi nabi muxamed dushiisa allaha yeelo wa calaa saa'iri nabiyiina nabiyaasha baaqigooda dushoodana allaha yeelo wa aali kullin wa calaa aali kullin mid kasta aalkiisa dushiisa allaha yeelo wa saa'iri saalixiina wa calaa saa'iri saalixiina saalixiinta baaqi dhammaantood dushoodana allaha yeelo salawaatullaahi ilaahay naxariisyaashiisa iyo wa salaamuhu calayhi nabiga dushiisa allaha yeelo wa calaa saa'iri nabiyiina nabiyaasha baaqigooda dushoodana allaha yeelo wa aali kullin wa calaa aali kullin waaxid kasta aalkiisa dushiisana allaha yeelo aalkana aqaaribta iyo atbaacda ayaa laga wadaa wa saa'iri saalixiina wa calaa saa'iri saalixiina saalixiinta dhammaantood ama baaqigooda dushoodana allaha yeelo saalixiinta waa alqaa'imuuna bixuquuqillaahi wa xuquuqi cibaadih saalixiinta waxaa la yidhaah addoomanka ilaahay oo u quma xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda addoomankooda u quma ayaa la yidhaah halkaas waxaa noogu eg dersigii koobaad ee kitaabkeena 40 nawawi hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh